Ingiliishkan waxa uu ku saabsan yahay ogeysiiska laga sameeyo diyaaradda dhexdeeda. Marka hore dhegeyso kadibna waan ku fasiri doonaa insha Allah. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard Flight 307 bound for Singapore. We're currently cruising at an altitude of 35,000 feet, and our estimated flight time is 2 hours and 15 minutes. The weather along the route looks good, so we're expecting a smooth flight. Notice inside airplane. Notice waa ogeysiiska inside gudaha airplane diyaaradda. Ogeysiiska diyaaradda gudaheeda la sameeyo. Maanta kadib haddii aad diyaarad raacdo aad ayaad u fahmi doontaa ogeysiiska markaasi diyaaradda dhexdeeda la sameeyo. Good morning, subax wanaagsan ladies and gentlemen. Mudanayaal iyo marwooyin. Good morning, subax wanaagsan ladies and gentlemen. Mudanayaal iyo marwooyin. This is kani waa your captain. Kabtankiina speaking oo idinla hadlaya. This is kani waa your captain. Kabtankiina speaking oo idinla hadlaya. Welcome aboard flight 307. Welcome kusoo dhawaada aboard flight 307. duulimaadka uu nambarkiisu yahay 307 bound for oo ku wajahan Singapore. We're currently hadda anagu cruising waxaan ku duulaynaa at an altitude joog of 35,000 feet oo 35,000 oo feet ah. And our estimated flight time qiyaasta waqtiga duulimaadkeenuna is waa 2 hours and 15 minutes 2 saac iyo 15 daqiiqo. And our estimated flight time waqtiga duulimaadkeena is waa 2 hours and 15 minutes 2 saac iyo 15 daqiiqo. The weather along the route cimilada wadaduna Lucas waxay u muuqataa good inay wanaagsan tahay. The weather along the route cimilada wadada ama dariiquna Lucas wuxuu u muuqdaa good inuu wanaagsan yahay. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard Flight 307 bound for Singapore. We're currently cruising at an altitude of 35,000 feet, and our estimated flight time is 2 hours and 15 minutes. The weather along the route looks good, so we're expecting a smooth flight. aad baad umahadsan tahay haddii aad halkaan soo gaartay laagta ku muujiye haddii aad jeceshahay barashada luuqada ingiliishka lambarka profileka ayuu saaran yahay halkaas ayaad nagala soo xiriiri kartaa waxa ayna qabashada ama diiwaangelintu ku eg tahay 2 ilaa iyo 3 bisha aad baad umahadsan tahay soo dhawow mar kale you welcome.